inaan caddeeyo keliya reer Hargeysa waxaan lahayn masalada waxaad ku dhaqaadeen xukunkeeda culimadiinni baa caddeeyey anoo aqoon oo malihi wadaad lagu yidhi waa suufi magaciisa muxuu ahaa sheekh maxamed weli shakhsiyadiisii iyo manhajkiisii aanu ma daraasin aqoon dheeraan u mali laakiin hadalku ku hadlay unbaan hadda miisaanka saaraya intaa asagu uu yidhi baan aaminsanaya iyo in ka culus weliba waxaan aaminsan ninka asaga xiriir ku gaaloobay quraankan ay sheegay dadka samaha iyo wanaagga idin faraya in la dhibo oo wanaagga idin sheegeen lagu dhibo khayrka idin faraan lagu dhibo xataa ruuxu gaal baa aade wad ku gaaloobaysa qofkii wanaag ku faray diinku u sheegay khayr ku sheegay khayrka asaga inaad ku dhibtood ku dishood ku xidho ku dhibaatayso waa min al-kufri fi ad-din in maanta xukunku taysku ay ku farxaan oo yidhaahdaan yuhuud baana ictiraafta annaguna aan ictiraafna waa gaalnimo diinka lagaga baxaya xukuumadda Hargeysa shacab kama hadlayo shacabku meel kasta uu joogaan waa ay muslimiin nimankan saaraa weligayba haddana aan saaranahay waqtiga inta ka dhimanna aan ku dhammaysan doono waa kuwama waa niman kuraasta ku fadhiya xukuumadda Hargeysa haddii horaan muslimad ahayd waxay ku gaalowday diinka kaga baxday inay ayagu yuhuud ictiraafeen yuhuud baan ictiraafna wacanay waa maxay ayagu way garanayaan wayna yaqaanaan wayna daraasayeen wayna ka jaahil baxsan yihiin waxay tahay way garanayaan yuhuud baan gacal ka dhiganay muslimiintii ay colka u ahaayeen oo dunida muslimka oo dhan reer Falastiin kow ay ka yihiin reer Gaza ay laba ka yihiin annagu aynu saddex ka nahay lagu yuhuud baan haysatay oo dhibi jirtay oo dhan baa col noo ah yuhuud baa gacal noo ah way macnaheedu al-i'tiraaf bi Israa'iil ninkii mafhuumkeeda iyo waaqiciida garanaya xukuuma iyo xaakim iyo maxkum uu ku gaaloobaya laana waa muwaalaat waa walo waa nusro waa uhilin yuhuud loo hiliyay laga hiliyay muslimiinta oo dhan maxaa yuhuud maxay yuhuud maanta adduunka joogta ka siyaasiyiin ka dawla ka xukuuma waa maxay waa cadow ilaahay waa cadowga muslimiinta saqiir iyo kabiir sanadkii hadda la soo dhaafay kii ka horreeyay kan socda saddexdaas sano waxay samaynayaan ay muslimiin ku sameeyeen weligood maysan samayn ninkii marka yuhuud ban ictiraafay yidhaahda ictiraafkeeda ku farxay asagoo garanaya ictiraafku wuxuu yahay ama caami ha noqdo ama caalim ha noqdo ama culimo taageertay oo ictisaam isku sheegay ha noqdo waa gaalo kafartu billaahi alcadiim diinkay ka baxeen bannaankay ka joogaan oo shawanaad fahantaan baa la rabaa bulshada muslimka ee Hargeysa ku nool ama halkan ku nool meel kastaba joogto ee ictiraaf wixii aan garanaynin uu gaalaysiin maayo kuma gaaloomayaan allahumma inni dabdaraka la yimaadaan mooyee الاعتراف بإسرائيل نينك قرني حاكم محكوم عالم وذات جماعة اسكو شيغي وحي تايوان محي ونصرة لليهود وموالاة اليهود ومظاهرة الكفار على المسلمين حلو يقصوا بيغن تهوشاس وحلو يقحما دون الإسلام كان لا يابن سنو لا يابن تا قال دي بقى أستعين يسيئين يهود لبابئيو فلسطين الله هيليو وحول بلغا حيوبيو دقاليه لغا جوجيو لا دغالما غالدي قال مريكنا اسوغو بيهود نعيب قبطاي عليا دمبغودي اركاي توشك لغو هيي ان قبدهن ومشحردان ودادين u dhaanteeyaan culumadeen dhahan anaga wa taageersan ma wax la soo hayba meesh cirka laga soo ciyaariyay ka timid bal qaylada masaadka ka timid ceebtaas ceebaan ka maydhan karama ah bal maduubaan taariikhda ka galay keenaya inaan ka xishoono Soomaaliyana sheegay waa ku faantami jiray inaan Soomaalinahay dad annaga u quruxsanayn annaga u fiicnayn annaga u geysanayn meel baabay ya anagu soo tagtay ha shaqeeyaan tagnay qadiyada marka waxba yaa mas'ala luus waa qadiya cad bayina واقع هذا أمرنا ظرف كأن جون الاعتراف بإسرائيل وكفر من الدين وخروج من الدين وكفر بالله العظيم سيدا مسلوين أو عضاطول العقاد وإذا ده طاقرسن عامضة طاقرسن قرنيس الاعتراف بإسرائيل الاتفاقية الإبراهيمية جناح يدا سياسي كدين كل واقع نمو كوا يدين كلا قضبين بيدين شاقي
qaybta siyaasiga iyo qaybta diiniga tadiiniga wadhaanto ka gaalnimo yar laana ninka muslimka midan diiniga lagu siri karaba اللهم إنه نوى لبا يهي مويد أما مد السياسي هو معي وهيلو إيا قرب دميسا يهودنا تيسو كان هيلي سوء أحد والبو يهود عول كذا يهود عول كذا وايو ومسلمين وعودي ننكي ولكن كوين هبلو جنادا إنه بلنا وعودي هذا نسكو أركوينو معودي جهنم شدال مدونتان كهوري ننبو ننكي جنة لقوي حقيت جرا نيجي يهود قرب يا جعل يهلا ونقضة مسلم بكهيلية ورقوا إنه سلا وعداو بلشة مركز ريه هرجيسة أمر ريه وقوي وحان له هاي مسلم كا ييس إذا خلد سياسيين تون قال لما يدين هرسيدين بلاي يدين كل دقائقين وحان نقبلين بين نوكينين وحقيلة إيو شرعية دا أيوه هيستان مجر وإذا بضره صدني 5 سنة اعتراف رادين إني قيل معها قال لما كوب نيسان كرتا وعيبا عالم العربي والرنبا شعب كيسو ولي إنا أركين قبط أما كوري أمش حرضية أما الله سي أما كفر حسن يهود ماركيس لكن صومالي بالله أركي يهود كفر حسن مدعي في التاريخ عيب أن لقوه ريني بين السماين عيب تاسان أغم مين اللهين وينو كتشنو waxay sameeyeen xukuumaddu ay sameeyeen waa gaalnimo ninka ku taageerana gaal kala weeyay saa ogaada xukunku inuu cadaado dambi kasta iyo dulan kasta curfi ama qoom idin ka galayna idin banayn maayinaad tilaabada nooca aad qaadaan waxaad kala ogaataan nin taageeray yuhuud ama ay taageerto oo ka faa'iiday fi taariikh lama arag waa reer xasad وreer khayaano waa dhagar waa cadaawad ilaahay kuwa ugu necab yahay weeye 5 goor bad maalin غير المغضوب عليهم jiraadaan habaarkooda ilaahay loogu dhawaadaa balaayin muslimiin maalin kasta habaarta ilaahu yahuudi wixii raaci jabi ilaahu maxamed iyo quwe ilaahu mactab iyo jabi waa tabaysaan reer gowso dad ka soo laaban weeyda habaarka lacanada yuud ku dhacday baa idin ku dhici ciidan la hadlay way xukuumadda حكومته ويو حكومته هرب ويو حكومني شعب كان ودقايا مسألة يان لا سياسيين يان لا قبيلتين يان لا قوميتين ومسألة دينيت واحد كفى إنسان مجره إن حكمك الله ينقعدين وواجب دينيت ما حد قالوا إنسان نينك الصومالي يهود تاجر اعتراف وان اعترافي هذا محو اعترافي ولكن المسلمين تورطن بين يوليهين إن أيهم مظلومين إن مسلمين أي ظالمين أيهم إن الله هليين أي مدينين مسلمين عدو إله والله هليين بلايا ازدبت أجر دمانين كتابك إلهي دينك إله ورب العلم نقون إنسان مسلمين ورب العلم نقون إنسان ولو يهود لسيو أو كوين أما كدرا أما كجالسا مجرو يهود ما أنت الله اعترافه ظرف كان مرة حالة أن تاجرنا وقت أن تاجرنا ما كان قيمة مسألة النصرة الليلة هي مظاهرتنا ومسألة عرفية وحمان تهيلا أي بريه لنقونين قال عن ملك قدومي وعنقبتين دقال عن سار وبيه بات كجوي أن رامر كي جاتون إن عن قبضه هذا بودي أجيسه مؤهس مسوهل بودي أنا كوجي وكجار مركز وكله واقع حالة ما كلا قيمة حلي قد مر إنسان الاعتراف بإسرائيل ومحي وأشد هي مظاهر الموالاة والمعاداة للإسلام قلب كساها وعداده وذاته وشا تاغيري كل قود والبهوش هاللي من وقبت قالوا وهي مرتد بالله العظيم هلو قالوا وين توبت كينان توبت من أبويرين واقعا ما من عقين لقيه لما هاي محايا لوي قرنها يا أمبي مواد باكا الله حسن قرنين محل عمر نوغوتها محل فتوانيس مسألة وين يستوى عادات الصومالية وحقوتها الله سيدا هرقيسون سعين لها ايه نمان كاتون كان اللو دوني لها عيب تنوغوتها لنا وجهه لوغم مي لها تاريخ ذات بال كمدون كقلينا لوغو قوين لها والله سبحانه وتعالى أعلم وحي هرينا هبين قصحوان قد جعك السندونا إن شاء الله تعالى
انت سعاوك قلتها يا وحيد من هبينا ضمان كدو وذات الشيخ محمد ولي إلا سيدة واجب إلا حين ولو قالوا بان تاجرين انت كعرس وذات كسين لهم عيد نينك حريب قالوا يا دور المسلم حرق جيسا نينك تاجرسن بكو قالوا بيا قضية دان كالله وكالله marka lagu xiray shakhsiyadiisa ay dambayso daraasad khaas ah kuma lihi talada guudna hadda jaamacada oday oo ka talano wadaad banaha in kasto marnaba doonaan iska dhigay hawsha caaw intaas oo ka eg tahay